kulanti wacan wanaagsan daawadayaal idin lahaantiin meel walba joogtaan waxaan idin leenahay kusoo dhawaada barnaamijkeena faaqidaada ciyaaraha waa saaxiibkiin maxamed uu karbaariyo idin leh mar kale kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha ee maanta waxaanu markaasi kusoo qaadan doonaa qodobo dhowr oo ay ka mid yihiin kulankii xalay dhex maray ee London derbiga ahaa ee Arsenal iyo weliba kooxda Chelsea guusha ay Arsenal ka gaartay Stamford Bridge iyo weliba qaabka ay xalay ciyaartu dhacday sidoo kale Real Madrid oo koox aad iyo aad u hooseyso ee Serie B-da ka timid oo weliba kaalinta 17 ku jirto ayaa xalay xasuuqday oo dibatay haddaba maqaladka macalinka ayuu ahaa oo ka tagay Xavi Alonso mase kooxda Real Madrid ayada dhanba ayaa kibirka iyo dhibaatada haysato ay ka mid tahay waxyaabaha ugu sababaya guuldarada kulamadaas iyo kulamo kaleento ayaa markaasi ku faaqidi doona barnaamijkeena ciyaaraha fadlan haddii aad nagu cusub tahay follow noo dheh page-ka like-ta iyo comment-gana fadlan hayna ilaabin fadlan haddaad nagu cusub tahay haddaa hore noola joogtana waxaa ku leeyahay share garay like-ta iyo comment-gana qaybta hoose inuu saar barnaamijkeena like-ta fadlan waa hal mar oo aad click siiso hayga xaasidin oo hayga baqilin walaalkayga qaaliga ah aad mahadsantihiin aanu u soo laabano marka qodobadeena ciyaaraha ay maanta iyo weliba suuqa kale iibsiga xagaagan oo sidoo kale into si aan caadi ah u socdo City oo la soo wareegtay ciyaaryahan Semenyo iyo weliba sidoo kale into ciyaartoy dhowr ah oo la filayo in inta ay dhamaan bishan qaarkoodna ay ka tagaan naadiyaasha waaweyn qaarna ay ku soo biiraan naadiyaasha waaweyn ee Premier League, Serie A, La Liga, Bundesliga iyo League One-ka iyo dhammaan horyaalada laga wada ciyaara kubadda cagta ee qaaradda Yurub iyo weliba Asia saaxiibayaal waxaan rabnaa inaan ku bilowno horto maxaa laga bartay xalay kulankii dhex maray oo derbiga ahaa Arsenal iyo Chelsea weliba Chelsea oo gurigeeda ku martiqaaday kooxda Arsenal ayaa dubatay oo si xun ugu garaacday isla gurigeeda Stamford Bridge Chelsea oo gurigeeda ku badaysa oo ay ka badisay kooxda Arsenal waxa ugu dambeysay xilliga oo markaas u ciyaarayay Patrick Cech oo Portugal ahaa goolhayaha ahaa intuusan imaanin Arsenal ka hor ay ahaydba haddaba FA Cup-ka ama Carling Cup-kan Arsenal hadda lugta hore waa ay soo badisay waxa la rabaa inay lugta labaadna ama bareejo ama ay badiso sidaasna ay suurtagal ku noqoto inta uu socday waxa goosh ugu horeysay kooxda Arsenal u dhaliyay ciyaaryahan Ben White oo 2023 horyaalkaas ugu dambeysay Arsenal inuu gool u dhaliyo xalay asiga ayaa ku bilaabay isla markiiba haddana waxa u la weeyay ciyaaryahan Victor Gyökeres oo goosh labaad dhaliyay sidoo kale waxa ay markaasi ayaguna markaasi ka bareejeeyeen oo ciyaaryahan Garnacho oo bedel lagu keenay ayaa laba gool ka keenay oo 3-2 ay ciyaarta ku dhamaatay sidoo kale Subamendi ayaa asna ciyaaray oo Gyökeres oo shuushka iska qaaday halna uu caawiyay halna markaasi waa uu dhalshay saaxiibayaal kulankaas waxa ahaa kulan aad iyo aad isha lagu hayay kooxda Arsenalna sideedaba waxay maamahan damba ay u dheelaysaa siday ku heli lahayd ama ku hanan lahayd horyaalka Premier League iyo dhammaan koobka laga ciyaara dalkaasi Ingiriiska oo ay ka mid yihiin FA Cup-ka, Carling Cup-ka iyo Premier League haddaba tan ma ka dhigan tahay haddii lugta labaad ay Arsenal gurigeeda Emirates Stadium markii la tago ay bareejo ku dhamaato taasna waxay suurtagal noqonaysaa in Arsenal markaasi ay iyadu ay u wareegto finalka koobkan ee Carabao Cup-ka waxayna mar dhow sarki doonaan City iyo Newcastle labadooda kooxdii soo baxda haddaba Newcastle 2-0 ayaa looga soo badshay oo City ayaa ku soo badisay haddaba guriga markii la tago Newcastle gurigeeda ay ma awoodi doontaa City in iyaduna sidoo kale ay sii xijisato labadii gool iyo natiijada ay leedahay mase waa laga badin karaa taasina waxay markaasi suurtagal u noqon doontaa waan arki doonaa iyo qaabka ay soo baxdo laakiin Arsenal iyo Chelsea qofkii soo baxa ayaa finalka isku maan doona City iyo Newcastle kooxdii soo baxda haddaba sidoo kale daawade waxaanu gudagalaynaa qodobkeena ugu dambeeyay ahaa kooxda Real Madrid iyo musiibada ku dhacday Real Madrid
waxaa markaasi xasuuqay koox aad u yar sidii loo xasuuqay kooxda Real Madrid xalay waxa ay ahayd si aan inaba caadi ahayn waa koox aad u yar oo Serie B ah oo kaalinta 17 kaga jirta horyaalka Serie B-ga marka saaxiibayaal kooxda Real Madrid xaqiiqdii musiibo ku habsatay oo inta lagu sheegi karin oo inta badan baa ayadu markaasi ciyaartooyda la isku wada keenay ee khaaliga ah ee kibirka ka batawada waa Xavi Alonso sababta uu kaga tagay oo isku casilay ayaa waxa kamid ahayd in markaasi ciyaartooyda asiga uu xakameyn karin oo awood u lahaan waayay inuu ciyaartooyda xakameeyo walow Carlo Ancelotti asiguba markaasi saan oo kale into dhibkan ugu jiray laakiin waa qof odaya oo 70 jir ah oo wuxuu isticmaalayay khibradiisa wayeelnimo iyo khibradiisa waye aragnimo iyo khibradiisa ciyaareed ayuu markaas isticmaalay ciyaaryahanku uu baahan yahay oo isleeyahay waa uu siinaya fursad ciyaartooyda qaarna waa uu ku dhagayo sida ciyaartooyda aad ku daayar sida Arda Güler Brahim Diaz oo kale minji wada gelinaya cunuga yariiska ah oo Endrick lahayo oo hadda Lyon fasax loogu diray intaasoo kuwa yaryar Ceballos waa minji wada gelinaya sababahaasna waxa ahayd ciyaartooydan waaweyn kibirka ka wada batay ee aanan markaasi waxaanan tooda ahayn rabin inay sameeyaan sidaas aawadeed ayuu wuxuu u fiiriyay inuu tooda markaas ayagu geliyo Vecini waa ciyaaryahan kibir badan dhib badan khayla badan buuq badan dagaal badan xanaaq badan iyo sidoo kale Kylian Mbappe oo markii asna yimid oo asna xanaaqiisa macna iskibriya iyo dhaqaalaha ugu badan ku socdo free ku yimid marka aad u adag tahay xaaladaha qaarkood way adag yihiin oo marka ciyaaryahanka markuu free ku yimaado oo haddana lacag fara badan kugu fadhiyo oo ka qaadanayo lacag fara badan يعني ما حكومي كرتت حلو الربو هشيسي كبيحي كريا إلى فري أجنت وحواي وترمينيد وكسمين كرا هشيس كابوس كنسلي كرا مش ربو عادي كرا هذا بوقي قالي دجالس لقشان لكن عياريها كأدي سوق ده طلع كات كسب بحسه صورة قال أمور نقون كريسو إنه مركزي حلو الربو أسيو كاتجو هشيس كيسنا ما أودي كري إنه كنسلو إلا عادي تيم ككسلان marka waa farqi u dhaxeeyo ciyaaryahanka free agent oo ku yimaado iyo ciyaaryahanka la soo gato lacag laga soo baxsho sababtoo ah kooxdan lacag ayada ka soo bixisa ayada markaas xilliga rabto ay diri kartaa haday u aragto dib qasaaro iyo macnaha madax adeeg iyo ciyaartii oo flop ku noqdo haday u aragto way diraysaa kooxdaas laakiin hadii uu free agent uu yahay oo mushar kaliya qaadanayo yani ciyaaryahanka xaq u leh hadii kooxdaasi ciyaar boos joogta ka waayo waxyaabaha qaarkood u baahan yahay ka waayo inuu ka tagi karo terminate ku sameyn karo heshiiskooda burburin karo marka saaxiibayaal Real waxa ku dhacay waa musiibo wax inaba caadi ahayn tusaale ahaan waxay musiibo ku tahay kugu leeyahay waxay tahay disaster ay ku tahay waa horyaalkan imisi ku haysi ku hogaaminaysa haddana ayada meeqa looga hogaaminayo afiiri guulo fara badan iska daba xijisatay haddana waxa ku soo xigay xitaa El Clasico-dii dishay Barcelona ay dileen haddana waxa ku soo xigsaday markii waqtigaas ka dambeeyay inay ayadu markaas hoos u dhacsanayso 5 kulan isku xigto xiriir lamana laga bashay 3 bareej la gashay marka aad u adag tahay saaxiibayaal aad ma santihiin tan iyo inta dib u kulmeen doono waxa leeyahay sida ay nabadgeliyo fadlan haddii aad nagu cusub tahay follow inoo dheh page-ka oo rukumo si ay hesho mar walba warbixinadeena sidoo kale into like-ta iyo comment-ga iyo share-tana hanaga ilaabin haddii aad hore noola joogteen fadlan noo share gareey barnaamijka like-ta noogu dadaal fadlan waa ka codsanaya walaal like-ta aad ugu leeyahay fadlan like-ta ugu dadaal iyo comment-ga iyo share-ta like-ta iyo share-ta ugu dadaalo aad baad ma santiin asxaabteeda qiimaha iyo qaayaha inaga mudan السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.